soo dhawaada asxaabay waxa jira dad aad u nasiib badan kuwaas oo ka helay guryahooda ama meelo kale waxyaabo aad u qaaliya oo markay iibiyeen ka dhigtay dad maalqabeena maanta waxaan idin soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah dadka ugu nasiibka badan adduunka kuwaas oo helay waxyaabo qaaliya oo u dhigmay malaayiin dollar intaynaan bilaabin haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaal Cusub subscribe noo saar si ay kuu soo gaadhaan warbixinahan ku faafino barteenan waad mahadsan tahay whiskey bottle inagu muslimiin ahaan ma cabno khamriga oo diinteena ayaa inaga reebaysa laakiin reer galbeedka marka la eego way sameeyaan wayna cabaan qisadanna waxay ku dhacday nin lagu magacaabo Brian Feed 2 sano ka hor ayuu iibsaday guri la dhisay 1950kii gurigaasina waxa uu ahaa mid u baahan dib u habeyn aad u badan laakiin markii uu iibsaday guriga kadib umay soo harin wax lacag ah uu dib uga habeeyo guriga sidaas darteed Brian wuxuu ku qasbanaaday inuu isagu hagaajiyo guriga intuu ku guda jiray hagaajinta wuxuu helay sanduuq qadiimi ah oo gudihiisa ay ku jiraan 13 quraaradood oo whiskey ah quraaradahan ma ahayn qaar caadi ah waxay ahaayeen qaar aad u qaaliya waxaana la sameeyay sanadkii 1917kii wuxuu ogaaday Brian qiimaha quraaradahan iyo in halkii quraarada uu qiimaheedu yahay $200,000 marka la isku wada geeyana uu qiimahoodu noqonayo $2,600,000 haddana isagoo taawog wuxuu ku bedeshay inuu isaga iyo saaxiibadii ay faaruqiyaan quraarada oo ay ka cabaan whiskiga halka uu ka noqon lahaa milyaneer Blue Opal nin lagu magacaabo Bobby oo ka soo jeeda Australia oo ahaa darawal daadiisuna ay ku dhaweyd 50 sano ayaa maalin isaga oo ku guda jira shaqadiisii wareeg ahayd wuxuu helay dhagax ka duwan dhagaxaanta kale markii uu baadhayna waxa uu ogaaday in aanu dhagaxani ahayn mid caadi ah oo uu yahay dhagax lagu magacaabo opal ee bluega waa dhagax aad u qaaliya markii uu ogaaday arrinkan wuxuu go'aansaday in aanu cidna u sheegin wuxuuna ku qariyay meel gurigiisa ka mid ah muddo 15 sano ah isagoo ka baqayay in laga xado wuxuu ahaa dhagaxan qiimihiisu $3 milyan wuxuuna sheegay Bobby in dhagaxani gabi ahaanba bedelay noloshiisa Coca-Cola shares Coca-Cola waa cabitaan soodho leh oo aad caan u ah dad badanna waxa uu yahay cabitaankooda ugu wanaagsan maalin maalmaha ka mid ah magaalada California ee Mareykanka nin ayaa ahaa mid iibinaya alaabta taala dukaankiisa alaabta dhexdeeda ayuu ka helay waraaqo jaraa'id ah oo qadiimi ah oo aad u raqiisa laakiin waraaqaha dhexdooda waxa ku dhex jirtay waraaq ka duwan waraaqaha kale markii koobaad ee uu arkayna waxay ula muuqatay warqad iska caadi ah laakiin markii uu ogaaday ninkan xaqiiqada warqadan iyo inaanay ahayn sida uu u malaynayo oo ay lahayd waraaqdan shirkadii shidaalka ee jirtay 1925kii taasoo isku bedeshay markay shirkadaasi kacday Coca-Cola warqaduna waxay u dhigmaysay $1,300,000 waana xaddi aad u badan oo qofka ka dhigi karta inuu waasho The Lost Viral Egg waxa jiray nin dhex socda suuqyada iyo meelaha lagu iibiyo alaabta qadiimiga uu iibsan jiray alaabaha kadibna uu sii iibin jiray uuna sii hagaajin jiray si looga siisto lacag fiican maalin maalmaha ka mid ah ishiisa ayaa ku dhacday saacado meel yaala oo ay ku jirto saacad qaab cajiib ah u samaysan oo u eeg ukun wuxuuna ku iibsaday lacag dhan $14,000 intaa kadibna wuxuu isku dayay inuu sii iibiyo laakiin dhowr toddobaad ayay taale cidina kama iibsan wuxuuna bilaabay inuu ka baadho internetka arrinka saacadan wuxuuna ogaaday inay tahay saacadu mid qadiimi ah iyo in boqorkii saddexaad ee Alexander uu sameeyay saacadan xaaskiisa waxaanu kaga iibiyay lacag dhan $30 milyan gudaha dalka Britain Wall of Coins magaalada Pennsylvania ee Mareykanka koox caruur ayaa soo gashay guri qadiimi ah oo laga guuray dhulkii guriga ayay ka heleen waxyaabo qadiimi ah oo ay garan waayeen meel ay ka yimaadeen ilaa markii dambe ay arkeen dildilacyo ku yaala gidaarka waxay bilaabeen caruurtii inay burburiyaan gidaarkii waxaana sida roobka ugu soo daatay shilimaan markii la isku daray qiimahoodu waxay noqdeen $8,500 shilimaantani waxay ahaayeen qaar qadiimi ah oo la sameeyay 1963 sidaa darteed qiimahoodii wuxuu noqday $200,000 Golden Nugget dhowr sano ka hor nin joogay waddanka Australia wuxuu sitay qalabka lagu baadho macdanta isagoo ku baadhbaadhaya dhulka wuxuu helay dhagax weyn oo dahab ah wuxuuna dhulka hoos ugu jiray 30 sentimitir oo kaliya bilowgii waxa uu maleeyay inuu dhagaxan yahay mid yar laakiin markii uu dhameeyay qodistii oo uu soo wada saaray dhagaxi wuxuu arkay inuu dhagax yahay mid aad u weyn xajmigiisuna yahay 5 kilogram iyo badh waxayna u dhigantaa $300,000 arrinka quruxda badan ee qisadan ku jira ayaa waxay tahay maalmo yar kadib dadkii ogaaday oo dhan ayaa yimid goobtii oo aad u baadhay laakiin waxba kama helin waxay u muuqataa in dahabku uu helay ninka laakiin aanu ninku helin dahabka haddii aad ka heshay daawada muuqaalkan like noo saar
haddii aad ku cusub tahayna channelka Ogaal Cusub subscribe noo saaruna share gara asxaabtaada.